Assalaamu calaykum. Videogan waxaan u hadli doonaa dhammaan wax waliba oo ku saabsan JavaScript, sida ay u shaqeyso, waxa loo adeegsado, iyo weliba future-keeda. Aan ka bilowno waa maxay JavaScript. JavaScript waa programming language, waxay kasii tahay script language. Haddaba waa maxay scripting language? Scripting languagesku waa qayb ka mid ah programming languages kuwaasoo aan u baahnayn interpreter amaba in loo turjumo computerka. Luqadahaasi waxaa ka mid ah JavaScript, Python, Ruby iyo weliba PHP. Halka programming languagesku ay u baahan yihiin compiler amaba interpreter si loogu turjumo computerka. Luqadahaasi waxaa ka mid ah C iyo C++. Luqad walba oo scripting languages ah waa programming language, sababtoo ah scripting languagesku waa qayb ka mid ah programming languageska, balse luqad walba oo programming languages ah ma aha scripting language. Sidoo kale JavaScript waa high level programming language. Sidaad ogtihiin programming languagesku waa 3 qaybood oo kala ah machine language amaba low level language oo ah luqad kaliya computerku fahmi karo, waxaana loo qoraa habkan, waxaana loo yaqaanaa binary number. Qaybta labaad waa assembly language, waa luqad programming loo adeegsado inay koodhkii aad qortay computerka u turjunto. Qaybta saddexaad waa high level language oo ah luqado u dhow kuwa bini'aadamka fahmi karo, si toos ahna computerka amaro u siinayo. Tusaale, haddii aad qorto 2 lagu daray 3, computerku si toos ah buu u fahmayaa iyadoo la adeegsanayo compiler amaba translator. Hadda waxaan fahnay JavaScript inay tahay scripting language iyo high level language. Anu guda galno waxyaalaha loo adeegsado. JavaScript waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa web development-ga oo waxay website-ka ku dartaa functionality. Haddaba JavaScript waa luqadda keliya ee koodhkeeda browser-ka lagu run gareeyo. 2021 survey uu sameeyey Stack Overflow oo ah website-ka ay ku kulmaan in ka badan 50 milyan oo developers ah, wuxuu sheegay luqadda loogu isticmaalka badan yahay dunida inay tahay JavaScript, waxaana adeegsada 64.96% kombaniyada adduunka. Luqadan waxaa loo adeegsadaa waxyaalo badan, waxaana ka mid ah 1. Client side ama front end. Luqadan waxay isticmaashaa React.js oo ah library ay samaysay shirkadda Facebook 2013 ayna weli isticmaasho. 2. Waxaa kaloo luqadan loo adeegsadaa server side ama back end. Waxay isticmaashaa Node.js oo ah framework lagu dhisay JavaScript. 3. Luqadan waxaa kaloo loo adeegsadaa mobile application cross platform ah, Android iyo iOS ba, iyadoo isticmaalaysa markaasi React Native oo ay samaysay shirkadda Meta ama Facebook. 4. Luqadan waxaa kaloo loo adeegsadaa desktop applications iyadoo isticmaasha Electron.js oo ah framework ay samaysay GitHub laguna dhisay JavaScript. Sidoo kale JavaScript waxaa isticmaala nidaamka blockchain kaasoo ay ku shaqeeyaan lacagaha cryptocurrency-ga sida Bitcoin iyo Ethereum. JavaScript waa luqadda labaad ee blockchain-ku adeegsado, halka luqadda koowaad ay tahay Solidity. Wuxuuna u adeegsadaa inay daatada laga soo fetch gareeyo blockchain kala duwan. Sidaa daraaddeed JavaScript waa luqad wanaagsan future ahaan, maadaama uu isticmaalo 3rd generation of internet amaba Web3. Waxaad commentiga nagula wadaagtaa mawduuc aad jeclaan lahayd inaan ka soo hadalno.